السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. adduunka meel kastaa ka joogtiin walaalahayga qaaliga ah waa idin salaamay, salaanta islaamka idinku salaamay, waana idin soo dhaweynayaa channelkayga. share gareeya, like saara, comment ka soo bixiya wax kastoon ka hadlo. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo walaalayaal oo arrin aada u muhiim ah, arrintaas oo kulligayo na wada saabeynaysa. waxay tahay gabar walaasheen daawaday youtube-keeda, gabadhaas oo calaacalaysa oo iyada teeda iyadoo iska calaacalin mid kaleeto oo gabar kaloo iyadana kasii daran iyada maskiin ah oo ooyeysa youtube-ka ooynaysa ay iyaduna maaragtay ka hadlaysay. gabadhaas waxaa la dhahaa nafta macalin dheer, channelkeeda waa kaas. gabadha kale iyadu markaas ay u hadlaysayna waxaa la yidhahdaa xaawo channel 2020, waa gabar kaleo iyadana walaasheeda soomaaliyeed. dhibaatada haddana haysato intaan kasoo tagnay annaga dhibkaa isku geynayno iyo caayda is caynayno iyo rag iyo dumar is haysta iyo waxaasoo dhan inta laga soo gudbay ba hadda waxaa loo yimid in dumar masaakiin ah oo gabdho yaryaroo masaakiin ah oo ilaahay maaragtay caafimaad la-aan iyo tabardarro isugu daray in la dhaco oo lagu shaqaysta iyagii oo lacag laga raadiyo. marka gabadhan waxay ka hadlaysay waxa waaye gabar ooyeysay ka hadlaysay oo youtube-ka ooynayso oo dhahaysa waa la iyasay, waa la irafaadiyey, dad badanaan la hadlay, youtube badanaan ku yiri caawiya, dad badanoo youtubero waaweynaan la hadlay, laakiin ilaa hadda ani waxaa iga daadegila oo aan la yaabanahay marka la leeyahay youtubero waaweyn. wax weyn ma jiro, ilaahay wax ka weynna ma jiro. boykada haddii qof ka mida dadkaas lagu sameeyana yaa oo aan la daawanina meelay gaarayaan mana. oo qof allaale qofkii subscribe u sameeyey iyo qofku markuu qofka live-ka soo fadhiisto maaragtay gacan qabtayba uu kulligood inta tago unsubscribe lagu sameeyo la daawanin channeladooda. maxay idinla tahay youtube? maxay idinla tahay youtube? waxay idinla tahay inay wax u tarayso? uma tarayso wax. youtube markuu arko qofkii in 20 qof ama 30 qof ama 50 qof ama 100 qof hal mar unsubscribe ka samaysay oo ka soo ceshay subscription-kii oo dislike ku sameeyey, videogiisa hoosaa la geynaa, lacagna looma soo diraayo. ilaan waa daawashada lacagta lagu siiyaa youtube-ka dadke. yaa gaarsiiyey meeshaas? aniga, adiga, walaashay, walaalkay, dadka annagaa gaarsiinay soomaalida. ilaa annaga unbaa luqadii fahmayno oo qofkii walaalkay ah oo markaas cusub isku gacan qabanayno. dadka marka youtube usoo fadhiista inay qof bila aadan ah dhibaato u geystaan ama lacag ka raadiyaan adigoo ilaahayba uu maaragtay subscribe ku siiyey oo dadkii ay ku daawanayaan oy ku jecel yihiin. markaad gabar maskiin ah oo yurub joogta oo waxba haysanin oo sokor qabta, gabadhan walaashii hadlaysay waa gabar sokor qabta oo maskiin ah oo ciyaal guri ku haystoon shaqaysan karin oo kuleh waan xanuunsanahay, gacmihii ay xanuunaya, waa gacan maalintii oo dhan dhowr jeer la duraayo, lugihii ay girgiriiraayo, 8 saacadood banaanka kama soo shaqaysan karo, ma awoodo. youtube-kan waxaan u furtay oo subscription yara haysata, dhowr boqol oo qof haysata. waxaan gebigiisaba u furtay inuu ilaahay arsaaqada iga siiyo oo dee markaas wixii aan dadka u faa'iideynaya adhiyadayda iyo wixiga aan soo jeesto at the same time shaqo ii noqoto. ma fahanteen? marka halkii la garab qaban lahaa lii lahaa maasha allah gabar walaashay aan garab qabanno kulliga isugu tagno baa waxaa lagu yiri lacag soo dir. ma rabtaa inaan meel ku gaarsiino kuu kala kicino? ilaahay unbaa wax kala kicin kara, ilaahay unbaa qofka garab qaban kara. adiga waxaa tahay sabab yar oo min asbaabillaah oo lasoo diray. qofkii halkuu wax u qaban lahaa u dhihi lahaa war niman yahow gabadhaas walaashay waa hala garab qabto, hala garab istaago sidii gabadhii muqdisho
maxay ahayd la rafaadinayay oo hal mar ilaa 60 kun la gaarsiiyey yaa halkii garab qaban lahaa la dhihi lahaa gabadha maskiinta oo jiran meeshaan arsaaqad yara ka raadsanaysaa wax weyn kaaba soo galaya youtube lacag kama soo gasho dadke youtube markaad dadkan dhowr kun oo qof kuu daawato bay hadday cirka tagto $100 kuu soo diraya ma fahanteen inta ka horeysana waa santiyaal isku tegtegaya lacag badan youtube ma soo gasho ilaa adigoona dhowr boqoloo kun aysan ku daawanin ma fahanteen marka waxa waaye gabadhaas arsaaqada yar intaas yarta ka kabashada ah rabta inay bilowdo hadda oo iyadan lagu gaaraa ilaahay ogaa inta lagu gaaraa leeyno markaad 4 kun oo saacadood lagu daawado oo maxay ahayd 1,000 subscriber ay haysatid markaas kadib waxay kuu soo dirayaan taano bishii $50 $40 $30 gabdha ay gulaha waana loo soo diraa bishii oo every single day video soo geliya meesha marka arsaaqad balaayaa kama soo gasho arsaaqadii haba ka soo gashay ilaahay meeshu wax kaaga furaa isagaa oge darshadii yarayd ee gabadha walaashay ah ay damacday inay ka raadsato arsaaqada oo istiri alla ilaahtan gurigaad u fadhisaa ilmahaagina waa ilaashan kartaa ilmuhu markuu kaa seexda habeenkii hal saac ama 30 daqiiqo ama 20 daqiiqo video duub dhowr videoyaal duub andeen soo deji oo wax dadaala ay la timid suuqi ba waxaa lagu yiri anaga kuu kala kicinayne inta qof ee la hadashayna qof kasta oo ignore gareeyay ba waxaa lagu yiri anaga kuu kala kicinayne ayaday gabadhaas kaleetaba oo Kenya joogta anaga kuu kala kicinayne lacag soo dir ilaahumay 20 dirto ilaahumay 30 dirto ilaahumay 100 dirto ilaahumay 50 dirto waa wax iyadu ay u baahan tahay oo iyadu inta iska soo xirtay ay u dirtay okay dib ma laha businessku dib ma laha haddaad tiri waa kuu shaqaynaya oo awrisan kuu samaynaya oo kuu daawanaya oo maaragtay subscriberan kuu raadinaya dib ma laha u samee ilaa shaqadu waa la shaqaystaa dadkoo dhan waa wada shaqaystaane soo ma dhibaato kuma jirto laakiin inaad dhacdiin oo telefonaadka ka goosatiin oo dib dambe ula soo hadleen lacagta markaa qaadateen taas waa waxaan kasoo horjeednaa annaga qofkii ku dhaha war cad kuu la yimaado walaalay aniga yes youtube aan leeyahay laakiin waa kuu shaqaynaa waqti waa ku gelinaya ana groupkayga dhanaa kugu xiraa waa lagu daawanaya waa lagu samaynaa awariski lacagan kaa qaadanaya waa kaas lacagta markaa ka qaadatay qofkii waa inaad tustid inaad xusameynaysid laakiin taleefka inaad ka xiritid oo dib dambe ula soo hadleen oo qof sharaf leh ay tahay walaacada diiday inay magacyadiina banaanka soo dhigto nimanka youtubeyada Kenya jooga waa Kenya dadka jooga ilaahay nabadha igu gaarsiiyo samarkan Kenya waa tagaya every single day year sanad kasta Kenya waa tagaa reer Kenya ah original oo yacni ehelkayga reer Kenya hooyadii reer Kenya habaryaashii reebtigii oo dhan reer Kenya sanadkeed la soo dhaafay 2020 bishii labaad oo dhan waa joogay markaas anigu ma bilaabin ba YouTube sanadkan insha Allah bisha lixaad waa idinla joogaa reer Kenya ballan waxaan ku qaaday kamarada intii qaato kulligeen idin wada ceebeeyo leena waxa waaye dadkiina kulligiin yaana dhihin leena waxa kulligiin wasakh ma wada tihiin dhowr idin ka mid ah wasakh ah wasakhdaas marka in la iska qabto banaanka in la soo dhigo gabadha walaashii way xishoonaysaa waxay leedahay qofkii ilaahay ceeb astura hal ceeb qofka astura ilaahay boqor u asturaya waana run waa qof kitaabka ilaahay ku dhaqmaysa laakiin kama tudiinu tudaan maanta marka gabar miskiin ah ay lacag inta kuu soo dirto shaqo kuugu soo dirto aad u sameyn weydid maxay kula tahay adigana ilaahay inuu ku gaarsiinaa ilaahay kuma gaarsiinaa meel fiican waxaan rajeynaa walaashay maxay ahayd nafta macalin dheer inay ila soo xariirto taleefankayga waan kuu reebay page-kaagaan kuugu reebay youtube-kaaga subscribe anigu mar horaan kuu sameeyay aniga adiga waa ogeyd subscribe waad ii samayso waad ii soo xariirto waxay tiri walaal subscribe baan kuu sameeyay subscribe ii samee waa ku soo booqday subscribe baan kuu sameeyay channel-kaaga every single maxay video aad soo dejiso waan daawadaa
daawasho oo 2 daqiiqo ma ahane waa dhammaystirtaa leeni saad adigana u heshid saacadahaagii waana waxaan kuu reebay taleefankaygaan kuu reebay whatsappka waxaan kuu yiri walaalay ila soo xiriir anigana hadda maanta insha Allah videogan dhowr fiidiyoyaal dhowr maxay ahayd qof oo walaashii ka mid ah channelkeeda waa soo gelina hoosta ku soo qoraa channelkeeda gabadha kale Xaawa maxay ahayd Xaawa channel 2020 channelkeeda hoosan ku soo qoraa iyadana labadaba walaalayaalow wixii daawanaya ilaa khayr ha idin siiyo gabdhahaas ha la garab qabto subscribe ha loo sameeyo ha loo tago comment ha loo sameeyo ha la dhiirigeliyo teeda kaleeto annaga dumar haddaan nahay wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi intayda dumarka ah ee u daawata dadka fusuqa iyo wasakhnimada iyo jaahilnimada la ordaaya hadda inta kasoo wada tagno kulligayo gabdhaha masaakiinta walaaladay ah iswada gacan qaban oo kulli annaga kaliya isku daawano waa hore qof kasta within 2-3 bilood qof kasta meel fiican gaari lahaa laakiin habar caynayso habar qabiil ka hadlayso habar karbaashaysa kuwaas ag fadhiisana u daawanaa oo maanta ana hore u soco maasha Allah waqti dhumis aan ku haynaa walaalayaalow dadka u baahan in la garab qabto oo la garab istaago garab qabta dadka u baahan in la daawado oo waqti lagu bixiyo oo wax idin ka soo galaya faa'iido ah dadkaas gacan siiya dadka is caynaya oo is haysta oo is jarjaraya iska tuura oo faraha kala baxa raggaasna waan dabageli doonaa maxay ahayd waan dabageli doonaa kulligood oo waan soo saari doonaa wax alaal waxay samaynayaan waan ka daba tegi doonaa magacyadoodana waan soo heli doonaa dadka intay lacagta ka qaataan dadka masaakiinta ah ay maaragtay ay maxay ahayd ay dibdamba teleefoonaadka uga xirtaan oo usoo jawaabi waayaan oo dhacaan gabdho masaakiin ah waan ka daba imaan doonaa ogaada saan ku keena magacyadiinaba waa keeni doonaa waana idin soo dhigi doonaa bacd maxay ahayd barta bulshada magacyadiina iyo youtube-yadiinana waan soo dhigi doonaa banaanka لأنه وحواي ظلمي ما فيعنا قبر مسكين أو هذا بلابس إلا الظلمي ما فيعنا قبر مسكين أو حتى ربطها إني channel فرط إلا الظلمي ما فيعنا قبر مسكين أو إذن بريسة أو إذن رهيسة ولا ليالو عاوية قاعن قبطة إن دلمسين إن أنتو حقوق بتسكلا في إن دباتو جيستين ما فيعنا قبر مسكين يرتان كليتو وحاول channel 2020 وينيس ودهيس waa la iyasay dadka Nairobi jooga iyo Mombasa iyo dadka reer Kenya ah oo leeyahay waa la iyasay wiilashaas la hadlay waa bariyay waa iyaseen bal fiiriyay ka meeshan gaarnay waxaan gaarnay in la isyaso oo hoos la isku dhigo qabiil iyo maxay ahayd iyo yasid iyo wasakhnimo ma goorta aan ka kori doono ma garanayno aniga idala hadlaa yaabi igu horeysay YouTube aan bilaabay hadda sanad dhawaan ku jira aad u faraxsanaa inaan soo dhex galo dadka walaalada ah inaan dad muddo badan ka dhex baxay oo maartay aan ku dhex jirin Soomaalida oo Arab iyo dadkan afahmay dadkan dabeecad fahmay dadkan dhaqan fahmay ku dhex jiri markii dambe ee video bilaabaysa oo maartay walaalaha wax ugu faa'iiday Arabigan ku bilaabay maxay ahayd channelkaygan andaan dad badan iga soo codsado yiri jooji Arabiga Soomaaliya u bedelay inay gabdhaha walaalada iga faa'iideystaan waxa ay okay of course luqadaada waa inaad ku hadashaa hooyo laakiin gabdho badan gabar waan xasuustaa wiligay ma iloobay haday daawanaysana way maqlaysaa YouTube weyn ma ahayn YouTube yara ay naftirkeeda laakiin waxaan ku yiri walaalay qofku waxa siis bara markuu channel bilaabayo hadduu qof xoogaa yar subscribe-kiisa ka badan yahay uu la soo galo videogiisa waa la isku daawanaya aan hal video isla sameeyno maadaama anigana skin care-ka iyo makeup-ka aan aad u jeclahay adigana makeup-ka iyo waxyaalahaas aad jeceshahay
aan ka wada hadalno. waayahay marba message u diraa waayahay say dhihis ayaantii dambe waxay ugu tiri odaga iga xanuunsano videoyaal maba samayn karaba ayaantaan. habeenkii saas ugu dhahaysa isla habeenkii videoyaal soo gelis, maalinta ku xigay soo gelis, maalinta ku sii xigay soo gelis. mid kaleeto oo ingiriiska joogta waa la hadlay ima isoo jawaabin. ani kanadaan deganaha kuwa kanadana la joogo dhowr qofaa masji u diray. yurubtaas gabar joogta hadda kor waa la xiriiray, wax iisoo jawaab markaan waayey farahan kala baxa. leanna waxaan ogahay oo aniga niyaddayda ogahay 100% bili aadan inays waxba kugu qaban karin. ilaahay haddaad tawakashid tawakalnaa cala allah aad tiraahdid ilaahay asaa ku garba qabanaya. markaan kala dhex baxay foor inaan qof weydiiso asxaan baa gabar walaashay ilaahay cirka iiga soo diray oo aad aan u jeclahay. gabadhaas channel ay leedahay Rumi in the kitchen aan dhahaa. gabadhaas ilaahay dartiisaan u jecla, waa gabar walaashay ah, isma uqooni hadda ka hor. gabadhaas waxyaalaha ay i bartay qof i bare ma jiro, meelaha i gaarsiisayna qof i gaarsiiyey ma jiro. waxyaalo badan anaan ka aqoonay youtube-ka i barta. wax allaale wixii ilaahay iyada cilmi uu siiyey oo youtube-ka ay ka taqaaniba i barta. saacadahaaga si loo kordhisto, subscribeskaaga si loo kordhisto, everything ilaa hadda waa wacaa walaali saas maxaa sameeya saas ay haysatee. ilaa youtube qof ku dhashay ma lehe, qof kasta waa cilmi uu la baranaaye. marka gabdhaha walaalada i maqlaayo aniga intii la i baray diyaara idin lahay inaan idin baro. aniga naftarkayga weli ma qualify uma noqonin oo saacadayga ma dhamaysanin. subscriberkayga waa gaaray laakiin saacadii weli ma dhamaysanin. subscriberkaygana waxaa gaarsiiyey dad carab oo ii daawada saxaab baan nahay oo aada u jeclahay, laakiin oo subscribe badan ii sameeyey. laakiin ma ay ku fahmayaan dadka carabta ahayd, ma ay ku fahmayaan waxaa sheegaysa. marka ma ku daawan karaan saacado badan. marka saacadahaygii ma aanan gaarin, laakiin alxamdulilah waan gaarayaa. ilaahay hadduu ii qoray wax ilaahay ii qoray qof iga hor istaagi karo bili aadana ma jiro. marka anigu qof aan baryahay hadda ma laha, laakiin waxaan leeyahay walaashay gabdhaha walaaladay hala gacan qabto oo kulligayo inta rabta inay youtube furato iyo inta hadda furato cusub oo subscription raadinayso dhano halasgarab qabto, halasgarab istaago. dadka 60,000 iyo 50,000 iyo 100,000 kulligay anagaa wada gaarsiinay, meelay jireen ma laha awalba. kulligayo inta youtube markaad niyadda gashatay waxa dad walaalaha daawatay oo saacada ku dhumisay oo every single day 10 video ku daawanaysay aysan kaa dalbanin. haddana thank you iyo maaragtay appreciation badankooda aysan lahayn, laakiin ilaahay dartiis baa waxa u samaynaysaa. waxaad samaynaysaa gabadha walaaladay ah labadan gabdhood iyo inta kaleeto meesha group dhana meesha kusoo qori doona insha allah. gabdhahaas hala wada booqdo. maxay ahayd inta youtube-yaasha ah oo kusoo qoro meesha kulligood hala booqdo. subscribe ha loo sameeyo, kor ha loo qaado, awariskooda kor ha loo kiciyo. aan is caawino. qofkii u baahan inuu ila soo hadlo taleefankayga waxaan soo gelinaya insha allah meesha maanta wuxuusan kusoo qori doonaa isoo waca. intii aniga walaashay igu siyaadisay Rumi in the kitchen oo gabar maasha allah chef ah oo cuntada ay kartay aad ka yaabaysiin booqda walaashay iyadana waa idinku kordhinaya. waa inta aniga la baray kama xasdaayo. maxay ahayd hadda koor gabar waxaa jirta soo kale ugu dareemay magacayga taleefankayga oo subscribe u sameeyey oo videoyaasheeda ilaa hadda aan daawado igumay soo warcelin, imay soo jawaabin. sidaas gabadha hadda ay u dalbanaysay in maaragtay la caawiyo ba iyaduna maaragtay ay dhehaysa hala caawiyo. laakiin aniga markaa bas nambarkayga u reebo eri waa kaas nambarkayga soo wac waxa aan kuga caawin karo kuga caawina imay soo jawaabin. marka aniga qofkii u baahan diyaara u ahay. qof anigu raadinayo oo barbaryaayo waa qofkii u baahan in wax la baro oo wixii aniga la baray oo aniga maaragtay subscription-kayga saacadayga ku kacayaan oo ilaa hadda aan ku wado oo ku socdo systemka hadda aan ku socdo maaragtay
waa idin baraya waxaa idinku siyaadin karna waa idin siyaadinaya nimankaas soo ma aha u soo jeestay inay dhacaan dumarka oo lacag ka qaataan oo teleefoonaadka ka xirtaanna waa idinka daba imaanaya ballan waa ina magacyadiina soo raadiyo iyo sawiradiina banaanka soo dhigo kulligiin iyo youtubeyadiina oo boykad kulligiin laydinku wada sameeyo kheyra isku ognahay naxariista haddaa bini aadan u naxariisatid ilaahna uu kuu naxariisana ha la ogaado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu